kadib markii aan arkay cabashooyin fara badan waxaan jeclaystay inaan muuqaalkan idinla wadaago. Muuqaalkan wuxuu ku saabsanaan doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo sida loo samaysto Notion ama trading plan adigoo isticmaalaya Notion. Haddaba Notion-ka waxaa ku samaysan kartaa telefoonka, waa ku samaysan kartaa sidoo kale intoodne waxaan kugula talin lahaa at least inaad ku samaysatid laptop-kaaga. maxaa yeelay laptop-ka markii aad ku samaysanaysid wuu ka professionalsan yahay markaa ku samaynaysid telefoonka. way jiraan dad badan oo ku samaynaya telefoonka waliba qaab cajiib ah, laakiin waxay u baahan tahay in aad u baratid oo aad la qabsatid. laakiin maanta waxaan doonayaa inaan kula wadaago qaabkee baad computerkaaga ugu samaysan kartaa Notion aad iyo aad u qurux badan oo aad trading plan-kaaga mar walba ku keedsato. suuqa forex sida wada ogsoonahaba wuxuu u baahan yahay in aad journalin aad leedahay, sidoo kale intoodna backtesting meel aad ku samaysatid waa inaad haysataa. haddaba waxaad uga maarmaysaa trade fara badan oo adiga qalqal ku gelin lahaa in aad britole markii aad qasaartid aad gashatid Notion-kaaga oo aad dib u malacdid inaadan qaladkii aadan sameynin. maxaa yeelay waa ku nood kareysan yihiin waxyaabaha la isku dhaafana waxaa kamid ah trading journal-ka iyo backtesting-ka. haddaba si aad ugu soo degsatid Notion-kaaga waxaa u baahan tahay inaad ku dhufatid Chrome markaad tagtid kadib waxaa qoraysaa Gmail ka soo kacsan. halkaana waxaa ku qoraysaa Notion download markaad ku degsatid linka ugu horeeya ku dhufsanaysaa. linka ugu dhow markaad ku dhuftid haddii uu yahay Apple-kana soo degsanaysaa, haddii uu yahay Windows-kana ku soo degsanaysaa. marka aniga Windows isticmaala laakiin waa ugu jiraaba. markuu ku soo dego kadib waxa sameynaysaa halkaan ay imaanaysaa Notion ka raadinaysaa. Notion markaa ka raadis halkaan waa kana soo maahan unpin from text bar mujeda ani saan hadaan do unpin meeshaan uu ka baxaa, laakiin maxaa leeyahay bin uu soo karo mujeedo. marka meeshaas uu ku soo karaa. meesha markuu ku soo karo kadib waa ku dhufsanaysaa. markaa ku dhufsatid sidaan camal Gmail-ka ku xiraysaa. Gmail-ka markaa ku xirtid kadib waxaad taabanaysaa new page markii aad taabatid waa kan meesha aad rabtid. marka waxaa leedahay marka trading plan 2024 aad dhahanaysaa. markaa dhahatid meeshaan tiidan capital ka dhigtid adiga qurqurxso waxaas adiga ayaa laga rabaa inaad qurqurxsatid. aniga waa ku tusaa trading plan 2024 empty new page kan ku dhufo. empty new page kan markaa ku dhufto kadib waxaad dooranaysaa meeshaan wajida calaamada shanta ah waa ku dhufanaysaa 10 into dan ma la rabo inay kaa waaweecdo. si toos ah u imaanaysaa, si toos fiiri oo soo galaysaa oo imaanaysaa toggle listigana aad ku dhufsanaysaa. toggle list markaa ku dhufsatid lacagta aad rabtid ayaa meeshaan ku qoranaysaa. EU aad rabtaa tusaale EU markaa aad rabtid kadib halkaan aad imaanaysaa. halkaan waxaa ka dooranaysaa calaamada slash-ka ah aad taabanaysaa al slash mujido slash-ka computerkaaga aad dhagsiinaysaa. kadib waxaan ka dooranaynaa page aan ka dooranaynaa. page markaa aan ka doorano halkaan waxaan ku qoraynaa trade 1 marka empty aad kasii dooranaysaa. empty markaa kasii dooratid haddana slash-kii ayaa sii taabanaysaa. slash-kii markii aad sii dooratid kadib waxaa leedahay calendar view aad ku dhufsanaysaa. waxay ku kicinaa halkaana imaanaysaa marka new database meesha ay ku qoran tahay ku dhufso new database. halkaan marka waxaa ku qortaa entry ayaa ku qoraysaa halkaas. halkaan markaa entry ku qortid taariikhda ku dulkeena maanta tusaale 25 maadaama suuq uusan jirin. halkaan marka maxaa ku qoraysaa waxaa ku qoraysaa trade 1 maya lacagta ku qoraysaa EU lacagta ku qoro. kadib marka meeshaan kan oo kaleentood renamed waxaa leedahay buys bogsiinaynayaa buys-ka kan waxaa leenahay buys type-ka sii dooro kadib waxaa leedahay select kadib meel bannaan dhag iska sii haddana isla kan lee bedel waxaa ku bedeshaa renamed date-ka cun waxaa ku bedeshaa after type-ka dooro waxaa ka dirtaa URL ayaa ka dhigaysaa URL. okay rename sii dhaho kan
rename markaa dhahdid waa bedelaysaa waa tirtiraysaa waxaa ku qoraysaa before type deh url ka dhig okay asaga la sii dooro rename deh kadib waxaa qoraysaa short position maya position leede position booska u geli rabtid position waxaa leedahay type dooro selected select okay positionkan meeshan dateka qaab kalena waa samayn kartaa add property mar walba taabanaysaa text imo kadib iska tirtir waxaa qortaa win/loss kadib waxaa imaadaa win hal iyo ka dhig typeka tag typeka markaa tagtid select ka dooro meel banaan dhag iska sii kadib waxaa leedahay maadaama kan anigu wiifida kan ku dhufo isku mid waa laakiin saa u sameynayso waa aragtay okay waxaa leenahay marka sessionka aan rabo inaan trade gareeyo sessionska markaan dhaho typeka tag select aan doorano okay waxaan sameynaynaa marka halkan meeshaan waxaan ku bedelinaa time time ku bedel type leh hoosta create time leh meel banaan dhag iska sii uu kaa baxa mujeedo okay marka timekan waxyaabaa u doorta waxaa kamid ah waqtiga aad trade ka qaadataa meeshaas kugu qormaayo add property taabo text ku dhufo kadib meeshaan waxaa ku qortaa waxaa kaloo naga dhiman beepska aan rabno inaan suuqa ka qabanno maalinkaas taabo number aan leenahay anaga number okay win target okay profit target aan leenahay profit meeqaan rabaa inaan faa'iido profit target type ku dhufo number dooro number format ka sii dooro US dollar ka dhigo meeshaan ring ka dhig okay loss target inta macnaha maalinkaas arabtid haddana inaad qasaartid loss waxaan u sameynaa inaa wax badan aa ka faa'iidiinaa rabaa adinka loss targetkaaga losska ah haddii arabtid suuqan inaa loss garaysid ama loss aa qaadatid meeqa ayaa qasaari kartaa kanna waxaa ka dhigaysaa losska waxaan ka dhignaa number ka dhig kadib USD ka dhig ilaa lacag waa waxaa qasaaraysid kadib ringaasna ka dhig okay intaa markaa samaysatid waa buyska uu kurmaysay saas u jiid after iyo before position sessions tagiskan waxaan ku bedelaynaa iyadana waxaan ku bedelaynaa maxaan ka bartay tradekan maxaan ka bartay tradekan okay type ku dhufo kana waxaa ka dhigaysaa multi selected ka dhigo hoosna keenso waxaan ka bartay tradekan sidoo kalentood waxaa maqanaa fila position waa haynaa okay buyska u imo marka buyska markaa u imaadi meeshaan waxaa leedahay suuqa maalinka buyska uu ku yahay consolidation buu ku yahay consolidation miya buyskaaga daily buyskaaga okay halkaan ku dhufo kadib sell miya buyskaaga maalinkan sell miya okay maalinkan buy miya waa kee intaas adaa dooranaysa kanne linkiya hore kasoo dhigtaba waa soo qaadaysaa copy ku leedahay kanne copy paste ku isticmaalaysaa loss targetkan isla markii tirada aad rabtid lacagta aad qasaartay maalinkaas $45 haday tahay $45 meesha ku dhufsanaysaa okay positionka markaa u gelaysid waxaa waaye waxaa loo galaa short position iyo long position labadaas aan u kala qaadanaynaa long position long position labadaas aan u kala qaadanay okay sessionska anaga aan trade gareyno waxaa waaye New York iyo sidoo kale intood waxaan trade gareynaa London session London
okay win or loss ka wuxuu noqon karaa target kan win oo ku noqon karaa ama wuxuu ku noqon karaa loss ayuu ka noqon karaa waa ina aqbashaa losska sidoo kale intood waxaad xiran kartaa partial trade kan partial oo ku ahaa waa iska xirtay qayb kamid ah xiratay partial sidoo kale intood wuxuu kaaga dhici karaa BE oo aan soo gaabiyay break even intaas marka ay sidkan waxa waaye 30 bib waaye target kaaga everyday 30 bib waaye waa iska cad numberku waaye okay maxaan ka bartay marka waxa leedahay suuqan waxa uu ku jiray consolidation tusaale waaya suuqan ababalo saasa u sameynaysaa adi waxay maanta aad meesha ku aragtid halkan ku qoranaysaa waa ka saasa u dooranaysaa mujeeda ma ka buuxsamay sidaas u dooranaysaa soo marka waxaan oo dhan adiga laga rabaa inaad sameysatid adi حاجرو waxaa badan laakiin inta ugu muhiimsan waa kana buys kaaga after iyo before kaaga loss target ka position ka chart session ka hadii aad rabtid marka charts ka inaad ku soo dariso waxa leedahay 1 hour chart text leh 1 hour chart waxa ka dhigaysaa type ka dhig URL ka dhig ay daily chart ku soo darsaa daartid adiga ku anfacaysa daily ama one day chart intaas URL ka dhig sidoo kale intood waxa meeshan ku soo harayo 1 hour hadaa dhahday 4 hour ne hasab waa inaa heshid 4 hour chart sidaas u samaysata asagana type ka tag kadib URL waa ka marka adiga si isku leeyina kor u geynaysa kan oo kale intood buys ka hoos mari kan sidoo kale intood ku xiji kan ku sii xiji خلاص meeshan URL lada waaye linkiga waa ku baast gareynaysaa bis waa ku baast gareynaysaa intaan ku baast gareynaysaa sidaas ayaana loo sameystaa Notion aad iyo aad u qurux badan marka adhoot marka ay ka baxdid sidaan ku noqon doonaa Trading Plan 2024 waa kana meeshan oo kale intood kuuskan waxa ka dhigaysaa madaxaas kale trade 1 mujeda trade kii koowaad ee bisha qaatay saas oo ku noqonaa mujeda trade koowaad bisha laadsanada qaatay EU ahead adi marka waxa laga rabaa marka EU maadaama ay sidaan ay tahay sidaan inuu qarsatid halkan imo hadane halka marka imaadid waxa taabanaysaa 10 into toggle list gu ama JBP USD waxaan ku qoro gu sidii hadda processkii amarnay amal marka sidaas loo sameystaa insha Allah waxa idin rajeynaa horumar iyo baraare insha Allah soo dhawaada